markii ugu horreysay aan maqlay dhaqankeena Soomaaliyeed qayb ka mid ah in lagu daro UNESCO waan yaabay dan waa farxay sababtoo ah dhaqankeena Soomaaliyeed uu ka qadiisan yahay waanu kana qoto dheer yahay sidaan u malaynayno laakiin keebaa si caalami ah loo aqoonsaday waxaa la yidhahaa xeer waxaan loo yaqaanaa finjaan waa hadiyad hooyada aroosadda iyo eedooyinkeed iyo habaryaraheed ay u diyaariyaan arooska iyo qoyskiisa horta waxaa lagu bilaabaa timirta waa la soo ururiyaa dabeetna waa la xashaa hadhowta waxaa lagu sameeyaa aw loo sameeyaa qaab ay weel dhan dabool u noqon karto bartankana waxaa kaga jira muqmadii oo hilib geel ah iyo subag Soomaali markaas dhammaantiiba waxaa lagu daboolaa timirtii la xashay waxaana loo habeeyaa si yaroo farshaxan leh waxaana lagu farsameeyaa xarka adag habeenka toddobaadna waxaa la furaa iyadoo ay qoysaska wada joogaan kadibna waxaa lala cunaa roodhi iyo shaah waa dhaxal aan la qorin balse ku nool xasuusta haweenka muuqaalkan abaalmarin ugu dir hooyo kasta iyo eeddo kasta iyo habaryar kasta dhaqankeena Soomaaliyeed heerkaas u gaarsiisay malaboy malab macaane ana muudsanoon dhigine